iimaanku shaygu qiraa lagu qabaa in raxmaanka qowlkii fahmaa soor maqaayibe ee qololkii fardowsiye jannuu qoorsan weligiye qaangaadh haddii aad tihiin qiira lagu beeray waxyigeenna qiimaha ku sugan quursi ka ilaasha qur-aanka iyo sunnaha laysku ladhay yaan la kala qaadin qaadaa dhigoodana bartiya sida wax loo qeexo oo tafsiirka waa lagu qoyaa fura quluubtiinna qiyaamaha xaggiisaa dhowaan loo qulqulayaaye dadyow qaadirkeennii wacnaa qaata amarkiisa. alxamdu lilaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi waasxaabihi waman waalaah uma amaa bacd. waa suuratu lbaqara bilowgeedii baynu maraynaa insha allahu. intaynan bilaabin waxaynu baraarujin lahayn xagga tafaasiirta dadku waa kala duwan yihiin. qof waa iska bilow markaa wuxuu u baahan yahay tafaasiirta kookooban sida safwatu tafaasiir mukhtasar ibnu kathiir iyo tafsiir اljalaaleyn aysaru tafaasiir kutubtaa kookooban markaa ereyada usoo ururinaysa qofka ama u sharxaysa. qofka daalibkee naxwaha yaqaana isagu waa ka faaideysan karaa jumalka iyo fatxulqadiirka iyo kutubtaas intubana waa yaalaano waa la heli karayaa waan filayaa. kolley aadaabta waxaa ka mida in deriska qofku uu la kaashado ciddii uga aqoon roon oo wakti uu ku celiyo uu sameeyo waktigaasoo qofku uu soo faa'iideysanayo wixii uu kala ilaaway ama uu garan waayey. ku celinta shayga loo yaqaano ama raacashada muraajacada wixii la garan waayo qoraal ba idinku soo qori si habeenka arbacadoo kale aynu markaa u sheegno wixii dee dalabadu ay u yar baahdaan in loo iftiimiyo. intaa waxaa sii weheliya uun dee derisku ama qur-aanka kariimka in lala noolaado waa xayaatu lquluub, waa qalbiga lagu noolaynayaa oo qofku hawlihii iyo acmaashii maalintii uu ku jiray iyo tacabkii ayaa uu ku dhaqlaqayaa ama uu ku culayaa o ku cidaadayaa. sidaa daraaddeed hadduu qofku waayo deris uu qaato 24 saacadood waxaa laga yaabaa inuu shaydaanku la durko. marka waxaynu uga jeednaa dee tafsiirku aynu fahmayno waxaa sii weheliya ku dhaqankii iyo inaynu maaragtay ruuxda ku qaboojinno. suuratu lbaqara waxaynu horreysiin doonaa insha allah suuraddan axaadiid ku soo arooray fadligeeda oo suuraddani fadligay leedahay inoo cadcadaynaya o inoo fasiraya, taasoo aynu ku garan karayno miisaanka weyne suuraddani ay leedahay iyo muhimaddeeda. xoogaa baynu yaro wadi doonaa si qofku u qiimeeyo qiimahay mudan tahay suuratu lbaqara iyo ka faa'iidaysigeeda. xadiid saxiixu muslim ku sugan abi hureyra uu warinayo nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam laa tajcaluu buyuutakum maqaabir faina albeyt aladii tuqra'u fiihi suuratu lbaqara yafiru minhu shayطaan calaa macna alxadiid. guryihiina xabaalha ka dhigina waxaa ku akhridaan suuratu lbaqara. guriga suuratu lbaqara lagu akhriyo shaydaanku wuu ka cararaa. innagana waxaynu doonaynaaba inuu shaydaanku inaga cararo. malaa'igtuna way timaadaa sidaynu arki doonno, shaydaankuna wuu ka cararaa. meel malagimina naxariis baa taalla, meel shaydaanyimina balaayaa taalla. nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kaloo saxiixa waxa uu ku uhi oo isna muslim ku sugan qur-aanka akhriya maalinta qiyaamaha wuu imanayaa isaga oo u ergeynaya qofkii ehelka u ahaa ama ku dhaqmi jiray maalinta qiyaamaha. weliba waxaa akhriyadaan azdahraaweyn, labada bilicda badan ee quruxda badan ee qiimaha leh waa suuratu ali cimraan iyo suuratu lbaqara. maalinta qiyaamaha way imanayaan labadaas suuradood iyagoo qur-aanka u horeeyo daruurahoo kale ah. waxay u doodayaan qofkii akhriyi jiray ku cibaadaysan jiray iqra'u lbaqara faina akhdaha baraka wa tarkahaa xasra walaa tastaiicuha albadla. weliba suuratu lbaqara buu nebigu gaaru si dardaarmo akhriya buu qaadashadeeda oo ah ku celcelinteeda iyo badsashadeedu waa barako, ka tegiddeeduna waa murugo, sixirlayaashuna ma karaan.
siduu nebigu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam xadiid kaloo albaani uu xasan ku tilmaamayo saxiix ibnu xibbaan ku sugan waxa uu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ina likulli shayin salaaman wa salaamu lqur'aani suuratu lbaqara shay waliba wuxuu leeyahy kurus geelowa innaga aragnaa kurus buu leeyahay dadku aada u daneeya macaankiisa iyo wanaaggiisa qur-aanka kuruskiisu waa suuratu lbaqara qofka suuratu lbaqara habeen akhriya gurigiisa ku akhriya lam yadkhul الshayطaanu baytahu 3 layaal gurigiisaa shaydaanku ma soo gelayo 3 habeen buu nebigu haddana ku celi weligaaba wadno faa'iidooyinka suuradday ka mid tahay xadiid kaloo ibnu mascuud uu warinayo oo isagana bukhaari ku sugan nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka akhriya labada aayadood ee u dambeeya suuratu lbaqara aamana rasuulu laga bilaabo habeen akhriya ka fataahu way ku filan yihiin marxay kaga filan yihiin nebigu ma fasirin calayhi salaatu wasalaam waxay kaga filan yihiin shaydaankiibay kaga filan yihiin sida horeba uu usoo xusay nebigu waxaa culimada qaarkoodna ay leeyihiin wardigii habeenkiibaabay ugu filaanayaan iyo qiyaamu leylkii suuraddan iyada ah nebigu markuu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam xadiid kaloo saxiixa waxa uu ihi qofka akhriya aayad kursida salaad walba gadaasheeda ama xagga dambe ka akhriya jannada waxaa ka hor jooga uun inuu dhinto markuu dhinto horay buu jannada ka gelayaa bukhaari waxaa ku sugan oo uu caddaynaya xadiidkaa usayd ibnu xudayr uu warinaya radia allaahu canhu inuu nebigu tilmaamay suuraddan marka la akhriyayo inay naxariis ilaahayna soo degayso malaa'igtuna soo degayso oy dhegaysanayso akhrinteeda xadiidku waa saxiix weeye usayd ibnu xudayr baa warinaya wuxuu yihi habeen habeenada ka mid ah anigoo cibaadaysanaya inankaygii yaraaye yaxyana uu ag hurdo ayaan suuratu lbaqara akhriyey markaan in yar akhriyey faras agtayda ku xidhnaa faraskaygii ayaa dhaqaaqoo wareegay waan yaro joojiyey haddana waan ku celiyo wuu wareegay oo xoog buu wareegay wuu dhaqdhaqaaqayaa sidii wax didayoo kale mar saddexaad baan ku celiyey oo markuu dhaqaaqay baan salaaddii ka baxay buu halkaasaan ku joojiyey xagga saraan eego waxaan arkay dhulkiioo wada iftiimaya daruuro tirigyo iftiimaya ay ka muuqanayaan nebigaan u sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulkuna ii sheegay inay ahaayeen waxa uu arkay daruuraha iyo iftiinkaas malaa'igtii ilaahay marka haddaad ku sii wadi lahayd waa la arki lahaa subaxdii malaa'igta iyadoo dadkaba u muuqanaysa marka malaa'igta iyo naxariistuba suuratulbaqara halka lagu akhriyayo ayaa ay ku soo degaysaa siduu nebigu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam xadiid kaloo xasan tirmidi uu ku tilmaamayo ibnu xibbaan iyo khusaymana saxiixooda ay ku soo saareen waxa uu sheegayaa suuraddan qofka yaqaanaa inuu madax noqonayo ama hormuud madaxtinimada waxyaabaha cv-ga lagu mutaysto ayaa uu ka mid yahay suuratulbaqara inuu qofku yaqaano ama xifdisan yahayba col buu anba bixinaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam duulimaada ama koox sariyo ah markaa wuu warwaraystayoo nin waliba inta uu qur-aan yaqaanaa buu weydiiyey intaasaan aqaanaa nin dhallinyaraabaa wuxu uhi intaana waan aqaanaa suuratulbaqarana waan aqaanaa marka rasuulku waxau yihi sala allahu calayhi wasalam ma suuratulbaqara taqaanaa dhaqaaji anta amiiruhu adaa colka ka madaxahe dhaqaaji buu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka taasina wuxuuna tilmaamaysaa un qiimaha uu leeyahay qofka suuraddan yaqaana fadhab fa anta amiiruhum buu rasuulku yidhi xadiidka sideedaad waxa uu sheegayaa suuraddani waxay ahayd afgarasho weyn oo quluubta mu'miniinta lagu dhiriyo markay xaaladdu adkaato iyo afgarasho cajiibahoo nebigii asxaabtiisa ka dhexaysay bay ahayd halka innagu aynu ka nidhaahno tollaayadii asxaabtii rasuulka ahayd suuraddani xadiidku waa saxiix weeye axmed iyo bayhaqi iyo muslimba waa ku sugan yahay inkastoo lafdiga uu leeyahay imaam axmed raximah ullah maalintii xunayna asxaabtu ay jabeen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu la hadlay cabaas ibnu cabdilmualib oo adeerkiia wuxuu uhi cabaasow dhawaaq raggii yaacay u yeedh maxaa la odhanayaa yaa asxaaba samura
yaa asxaaba suurati albaqara saasaa loogu yeedhaya war qoladii geedka nebiga kula heshiiyow xaggee u yaacdeen id yubaayicuunaka taxta ashajara waa maalintii adkayde sanadii 6aad xudaybiye heshiiskii lagu galay ee muslimiintu ay nebiga gacan qaadeen in wixii uu amro ay yeelaanoo maka la galo oo ilaa dhimasho loo diyaargaroobo heshiiskaa raggii galay xaggee u yaaceen wayaa asxaaba suurati albaqara baqaro raggii yaqaanay ama ehelkaba u ahaa ee loogu talagalay inay ku dhaqmaan xaggay qabteen waxaana weeyaan de waa suuradda sida cajiibkaa usoo bandhigta jihaadka ninkii axkaamta jihaadka ku yaqaanay iyo baqari siday jihaadka uga waranto xagguu maray sidoo kale khaalid ibnu waliid markii uu colka horkacayay la dagaalamayay ninkii nebinimada sheegtay ee la odhan jiray musaylimat lkadaab yowma alyamaama asxaabtii iyo muslimiintii halkaa marayay aad baa loo laayay markii dambe dib loo abaabulayay isaguna yeedhmadaasoo kale ayaa uu ku baaqay oo ugu yeedhay ansaartii iyo muhaajiriintii baa waxay isugu yeedhayaan yaa asxaaba suurati albaqara xataa fataxa allaahu calayhim yeedhmadaasaa oo innaga halkaynu tollaaya ka nidhaahno iyaga tollaayadu iyo asxaaba suurati albaqara bay ahayd waa la soo noqday labada jeerba markaa nebigu cabaas yidhi yeedh iyo markuu yihi khaalidi loo yeedho colkaba labada jeerba waxay u soo laabteen si cajiib ahoo deg deg ah oo u jawaabeen waxa uu lahaa imaamkaa la ydhaha khaalid bin macdaan suuraddan wuxuu ku magacaabi jiray fustaanu lqur'aan waa taambuugga qur'aanka qur-aanka o dhan bay ku dul qotontaa waxay ka hadlayso qur-aanka o dhan wuxuu ka hadlayo wey waa barakadeeda iyo weynaanteeda iyo axkaamteeda oo aada u badan daraaddeed waxa uu soo naqilaa ama xusaa imaamu maalik raximah ullah kitaabkiisa muwadaca cabdilaahi bnu cumar inuu baranayay suuraddan iyo fiqigeeda iyo axkaamteeda 8 sannadood riwaayo kale waxay tilmaamaysaa inkastoo maaligaanay ku sugnayn taariikhda cumar 12 sannadood buu baqara dul fadhiyey haddaad adigu faas tahay ood hore u soo fadhido oo doonayso bil ama laba inaad kaga gudubto ama aad leedahay war muu inaga bilaabo ordhaca intuu iska daayo sheekh cumar binu khadaab 12 sano suuradan dul fadhiya fiqigeeda iyo faahfaahinteeda iyo dhuuxideeda inankiisiina waxa uu dul fadhiya cabdilaahi ibnu cumar 8 sannadood labadoodana waxay ka mid ahaayeen asxaabta ugu badan xagga cilmiga qur-aanka iyo sunnadaba aada u yaqaan marka waxay nooga baahan tahay faham iyo dhugasho badan oo aada iyo aada qofka muslimka ahi ugu dadaalo suuraddan waxay leedahay khasaa'is iyo waxyaabo ay suuradaha kale kala gooni tahay waxa kowka ah waa adwal suura fi lqur'aan suuradda qur-aanka ugu dheer wey marka la isu geeyo saynu ogsoonahay oo dee waa 2 jis iyo dheeraad ama 5 xisbi wax ku dhoweeye suuraddu waxaa ku jirta aayadda ugu dheer aayadaha qur-aanka oo safxad ama hal bog ah aayatu dayn suuradda waxaa ku jirta oo kale sida uu yidhaahdo ibnu kathiir raximah ullah waa suuradda ugu axkaam badan axkaamta waynu xusi doonaaye qofka muslimka ay u baahan yahay ama mujtamaca muslimka ama adduunyaduba u baahan tahay qawaaniinta iyo nidaamka suuradda koobsantay ee ugu badan weeye weliba aayadaha axkaamta ka warrama markaa waxa uu leeyahy waxaa ku jira 1000 xukmin wa 1000 amrin wa 1000 nahyin wa 1000 khabar kun amar iyo kun nahyi iyo kun xukum iyo kun khabar waa raggii dhuuxaya u dhabagalay baa saa uga soo warramay suuradda saynu soo arkaynay waxaa ku sugan suuradda aayaddii aynu imika soo marayne aamana rasuul ilaa intaa labada aayadooda u dambeeya oo ah dee dheeraaduu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam iyo inay qofka ku filan yihiin waxaa ku jirta suuradda aayaddii ugu dambeysay ee qur-aanka kariimka ah soo degtay wattaquu yowma turjacuuna fiihi ila allah aakhiru aaya nazalat min alqur'aan waa sida qowlka raajixa fii culuumi lqur'aan marka la eego suuraddu magacyo dhowray leedahay suuratu lbaqara waa asuura alatii dukira fiiha qisatu lbaqara qisadii saca ayaa lagu dhex sheegay sanaamu lqur'aanna waa la yidhaha dirwatu lqur'aanna waa la yidhaahdaa magacyadeeday ka mid yihiin kuwaas oo xadiidkaa taana caddeeyey aayadaheedu waa 286 aayadood
kelmadaha suuraddu ku jira ee aayaadkaasi ay ka kooban yihiin waa 6121 kelmadood xarfuhuna waa 22613 xaraf rag baa sidaa xafiduu fi sutuuri wa fi suduur qur-aanka saasaa laabtana loogu hayaa kitaabkana loogu hayaa la ilaashanaya marka mid kastoo gaali hadduu yimaado doono inuu wax ka bedelo dee xarfiyaaba raggan u tirsanba wax la bedeli karaaba ma jiro marka haddii aad ku dhufato 10 ama 0 ku darto 25,000 dee waxay noqonaysaa 250,630 ajri ayaad leedahay 250,000 iyo siyaado ajri baad leedahay haddaad hal mar dhammayso waxaana laga yaabaa qofku saacad inuu ku dhammayn karo hadduu suuraddan akhriyo marka suuraddan intaasoo dhan baad ku helaysa faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid a sidaynu soo arkaynay dee inay sixirka ka tahay wiqaayo iyo cilaaj labadaba sixirka iyo shaydaanka wiqaayo way ka tahay oo ilaahay baa kaaga difaacaya oo culimada cilaajku sida saxdaa wuxuu daweeyaa waxyaabaha ay culayska ku saaraan sixirka iyo jinka iyo isha suuratul baqara kow ka ah ee nabiga cadeeyay calayhi salaatu wasalaam marka cilaaj way tahay oo qofkii waxyaabahaasi cudurrada ruuxdu ay soo gaadhaan waa lagu daaweeyaa ka hortagiina waa saasoo kale waa loo isticmaalaa sidaa daraaddeed bay habboonta gurigii in lagu akhriyo siiba arooska guriga cusub xaafadaha qofku hadduu kari waayo inuu akhriyana waa inuu cajaladda ku ridaayo ay iska siraadnaata cajaladdu siiba waqtiyada la aamusan yahay iyo habeenkii marka la seexdo waxyaabaha lataa'ifkeeda waxaa ka mid ah suuradda bartamaheeda waxa ku beegan ama dhexdhexaadkeeda aayadda ka warramaysa muslimka dhexdhexaadkiisa wakadalika jacalnaakum ummatan wasata litakunuu shuhadaa cala annaas ummaddani waa ummad dhexdhexaad ah oo ummadaha gaabiyeyna kuma jirto kuwa xadgudbayna kuma jirto aayaddaa dhexdhexaadka sheegaysa dhexdhexaadkeeda ku beegan 142 meelahaasay noqonaysaa dee kala barhkuna 340 meelahaasaabuu haaba intaa haddii aynu kaga soo gudubno suuraddu khasaa'iskeeda iyo fadligeeda muxtawayaadkeeda aynu wax ka taaban lahayd ama waxyaabaha ay suuratulbaqara koobsatay suuraddani waxay koobsatay sharciga dadku ay u baahan yihiin intay adduunyadan joogaan ee aanay ka maarmi karaynin waajibna ku ah daruurina u ahee baahidooduba ay ku xidhantay sida caqiido wanaagsan cibaado wanaagsan cuud xalaala ama xoolo wanaagsan oo qofkii uu isticmaalo u dhaqdo iyo qoys wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan iyo siyaasad wanaagsan iyo xoog military oo wanaagsan intaasoo dhan bay ka warramaysa marka waxay aada ugu baxday suuraddu nidaamka aynu soo sheegnay oo si mufasala ay u soo bandhigi doonto guud ahaanna marka la isku celceliyo waa caqiidada noocyadeedii kala duwanaayo noloshii addoomaha ilaahay uu faraya inay cibaado ka wada dhigaan dhinac walba intaa aynu soo sheegnay markaa suuraddu waxyaabaha ay soo bandhigtay bay ka mid tahay nidaamka caqaa'idka cibaadaadka mucaamalaadka akhlaaqda arrimaha qoyska siiba ood arki doonto furiinkii iyo cadadbixii iyo ilmihii la jaqsiinaya iyo xuquuqa zawjiya dadka la guursan kara iyo dadkaan la guursan karin suuraddu waxay aada uga warrantay taariikhdii bani aadamkani uu ka soo bilaabmay inaanu iska abuurmin daayeerna ka imanin sida gaaladu ay ku doodaan laakiin ilaahay uu abuuray subxaana wa tacaala xikmadna uga jeeday marka waa inaga arki doonnaa nebi aadam oo ilaahay abuuray oo abuurkiisana malaa'igta uu sii ogeysiiyey iyo khaliifada laga dhigay waa suuraddu waxay tilmaamaysaa inta ifkan la joogay in dagaal lagu jirayo dee ibliis baaba taaganba oo aabbaheen weerar ku qaaday marka ha isdhiganin ninkii isaga ahaa ee aabbihii inoogu weynaa dagaalka la galee xaasidee ku kibray weli uu taagan yahay isaga iyo faraciisa suuraddu waxay ka warrantay soo bandhigtay waxaan la yidhaahdaa adduunyadu waxa loo qofku u baahan yahay inuu khibrad helo waayo aragnimo hore oo dadka qaarkood ay soo mareen maxaa nolosha laga ilaalinayaa maxaase nolosha inta la qaadanayo lagu dadaalayaa labadaaba waxa kaa sixi kara maadigii oo lagu sharxo saa daraaddeed shayga la yidhaahdo taariikhda
waxaa la yidhahdaa taariikhdu wax sahlan maaha taariikhda hore waxaa lagu saxaa mustaqbalka waxaa la yidhahdaa taariikhu mir'aat almustaqbalu mir'aat almaadi mir'aatu lmustaqbal waktiga hore tegay waa muraayadda waktiga soo socda marka aada buu qur-aanku uga warramaa taariikhda suuraddani waa suuradda ugu badanee ka warramaysa taariikhda reer banu israa'iil ama nimanka yuhuudda la yidhahdo alyahuudu fi lqur'aan yuhuuddu muuqaalkay leeyihiin qur-aanka dhexdiisa suuradda ugu cajiibsana soo bandhigaysa weeye yuhuudda aada arkaysa taariikhdooda aynu hayno maantana aynu arkayno adduunyaduna khadiyaanka ka taagan tahay suuraddaasaad sawirkooda ka arki karaysa weliba wax cajiiba iyagoo kuwii taariikhdan lahaa ay tegeen ayaa markuu ilaahay la hadlayo kuwii nebi maxamed wakhtigiisii joogay buu la hadlayay iyagoo tallaabooyin waxyaabaha laga warramayaana wixii hore ay yihiin leanna mar walba yuhuuddu way wada socdaan kuwii hore iyo kuwii dambe marka khatarta ay leeyihiin iyo ceebahooda in lagu baraarugo iyo in la iska ilaaliyo awgeed suuraddu aad bay uga warrantay 3 meeloodoo meel wax ka badan suuradda ayaa soo bandhigaya laga bilaabo yaa bani israa'iil adkuruu nicmatii allatii ancamtu calayk ilaa laga gaadho waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahum ilaa halkaa laga gaadho intaa qisadoodaa soconaysa suuraddu waxaynu arki doonaa qisooyin bay xagga dambe kusoo bandhigaysaa ilaa 4-5 qiso oo iyaguna dhammaantood tilmaamaya awoodda ilaahay iyo inuu ilaahay aakhiro dadka soo noolaynayo oo dad badani nolosha aakhiro iyo diidmada ay aakhiro diideen daliilkii sugayey aakhiro iyo jiritaankeeda dhowr qisoo soo bandhigaya qisadii nebi ibraahim iyo xayawaankii ilaahay uu nooleynaya markaa dee ilaahay isha u saaray qisadii cusayr taaluut iyo qisadiisa qisaskaasoo dhammina xikmaddaasay xambaarsan yihin dhaqaalaha bani aadamku wax soo saarkiisa siduu u soo saari karaa inuu xalaal noqdo oo ribada ka ilaaliyo iyo wixii uu haystay meelaha ugu fiican ee uu ku bixin karo iyo aadaabta uu ku bixin karo iyo wixii la kala amahanayay heshiisyadii la gelayay ballamaha laga bilaabo aayadaha infaaqa iyo deeqda ka warramaya aayaatu riba aayatu dayn intaasoo dhammi dhaqaalaha saxan ayay suuradda ka warrami doonaan muuminiinta ama awliyada ilaahay ammaanta leh iyo astaamahooda qaaliga ah iyo inaynu ka mid noqonno laynagu dhiiri gelinayo iyo inuu ilaahay towbadiisa diyaar inoola yahay labada aayadooda u dambeeya ayaa ka warrami doona adduunkan lagu waari maayo warunbaa ka hadhaye inaynu iska diyaar garowno mid aakhiro la idhaa iyo qiyaamana u dambeeyo ayaa ilaahay u xusi doonaa wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah marnaba qiyaamaha la ilaawin xalla waxa aynu islaba rogayno aynu soconayno aynu dhisayno aynu dhaqayno waxa ka dambeeya un su'aal iyo xisaab suuraddu arrimaha ay soo bandhigtay kuwaas weeye tafsiirkeeduna halkaas inooga sii socon doonaa insha allah wallahu subxaanahu watacaala aclam يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان